barista BDRC marti ku ahaa barnaamijkan BDRC Talk la yiraahdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh su'aalo dhowr ah oo fara badan oo dalka iyo waxyaalihii uu ka qabtay iyo waxyaalo kale oo isugu jirtay oo ciwaanka federalism ku ahaa oo ciwaanka la xiriira iyo su'aalo kale oo guud ayaa madaxweynaha halka lagu weydiiyay qoto adiga khaas ahaan marka laga yimaado inaad tahay dadka reer Puntland waxaa si gaar ah uga soo jeedaa goladan Sool iyo Sanaag oo og tahay xaaladda cakran gobolada ka taagan madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la weydiiyay su'aasha ahayd gobolka Sool iyo Sanaag jawaabta uu bixiyayna waad dhageysatay waana daawatay maxaa kaaga baxay jawaabtaas waa mahadsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh anoo ku ixtiraamaya astaanta qaranka uu soo qabtay iyo ixtiraamaya madaxweynuhu in badan buu dalka soo maamulay wax badan buu ogyahay Xasan Sheekh Maxamed waxaan leeyahay su'aashaas jawaabteeda waad ka jawaabtay laakiinse waxaad jawaab ku furan ma ahayn maadaama 4 sano aad dalka joogtay xukuumaysay lagu kal waayay deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn wax ka qabo maalinta ugu dambeysana aad tiri maamul goboleedada waxa u dambeeyay galmudug baa u dambeysay marka Xasan waxaan leenahay Xasan oo kuma furnay halkaasi waxay inaad sidii farmaajo tiraahdeed anigu waa ka aamusay su'aashan ma fahmin marka Xasan waxaan leenahay Xasan oo dib isugu noqo maanta ololaad ku jirta olahaaga iska wado deegaanadaasna xalkooda wuxuu yaalla madaxtooyada Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed way yaallo wuxuu yaallaa madaxtooyada filo Soomaaliya hadda ninka jooga waxa laga kar waayay warshaanbada ku dhufo oo nimanka halka jooga ummadda qadiyadu qaaday inta badan qadiyadooda ka shaqeeya Soomaaliya shaanbada si oo maamul dhis oo system iyo haykal dawlad u sameey oo dadka shacabka ay halka jooga istabta faraha badan loo dhigtay ka hadal waa lagu karwaay marka maanta ay tiraahdo ummadda Soomaaliyeed buu taala adaa madaxweynaha adaa filo Soomaaliya fadhiya adaa shaanbada hayay marka odayash ku yimaadeen waxa tiri galmudug baa u dambaysa isteedadii marka Xasan waxa leenahay Xasan Raali ahaw ummaddaas way ku taqaanaa oo ku ogtahay Sheekh Shariif ku dhaamay barigi 8 xubnood barnaamijka noo geeyay Sheekh Shariifna abaal baa lagu hayaa marka Xasan waxaan leenahay Xasan Raali marka jawaabtaas uma furnayn inuu ka jawaabo uma furna inuu si madaxweyne farmaajo yiraahdo su'aasha waa adag tahay baahida yiraahdo way waxaad ahayd dadkii inta badan la soo jaan qaaday burburkii dowladihii burburka soo maray xalay waxaa baraha bulshada xisbiga wadajir iyo kan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo baraha bulshada aad loogu faafiyay muuqaal uu leeyahay murashax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda ka mid ah dadka ku sugu damaca kaga jiro madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan wuxuu shacabka weydiistay taageero dhaqaale oo lalaha doorashada ku galo markii ugu horeysay oo siyaasi noocaas shacabka la hadlo oo dhaqaale weydiisto intii burburka aan ka bahalkoobay marka qoto ahaan dhaqankaas siyaasigan uu qaatay oo ahayd markii ugu horeysay si u agta waxaan leeyahay Cabdiraxmaan soo dhawow waxaad furtay isqad cusub oo hadda horta madaxtinimada Soomaaliya ay ugu horeyso waxaan leenahay talaabo wanaagsan waxaan leenahay Cabdiraxmaan lacagaha lagu shubo madaxtinimada maadaama ummadda Soomaaliyeed yiri hal ay kaalmeeyo waxaan leeyahay waa talo wanaagsan kulay daanu shakhsi ahaan kowtahan waa sii deynaya xogaagan hayo dadkan waxaan leeyahay ruuxa qaban kartaan odayga hala Soomaaliyeed mas'uulka ah lagu shubo odayn badan halka ka qeylinayay dalka dibadda bal ninkaas in badan buu TV-yada iyo meelaha social media ku jiray waxaan leeyahay ninkaas maanta odayga soo hadlay Soomaaliyeed xisbiga hogaaminaya hala siiyo wixii la siin karo gaar ahaan deegaanada Siina waxaan leeyahay lambarkii waa la ii sheegay halka ku shuba xogaaga aad haysaan taageer ninka hala taageero ninkaas in badan buu ku jiray siyaasadda hadduu maanta yiray kaalmeeya hala kaalmeeyo bal ninka 4 sano bal meesha loo dhigo soo ninkan in badan buu hadlayay oo meel walba ka hadlayay bal markuu ninkan afso meel ha gaaray bal ninka كنت gabagabadii shirka waraysigeena xaalad cakran baa wadanka ka taagan arinta godo waa ka warhaysaa arinta doorashada gobolada waqooyi oo labada qodob oo aad murunka hadda ka taagay waa ka warhaysaa ma isleedahay dowladda madaxweyne Farmaajo waa ku saxsan tahay in ciidankiisu gedo
halkaa ciidanka ciidan ay halkaa geyso. sidoo kale xaq muu leedahay in ay iyadu magacaawdo guddiyada doorashada ee gobolada waqooyi ka bahalkaysa. sidoo kale waxaa jira guddiga dowladdu ay magacaawday oo aad loogu dhaliliyay inay yihiin shaqaalo dowladeed. marka intaasoo marka la isku soo koobo maxaa is leedahay adigu ma maamul goboleedaa ku khaldan mise dowladdaa ku khaldan? anigu fikirkay waxaan is leeyahay shakhsi ahaan oot ahaan aragtidayda waxaan leeyahay waxaa jira dowlad dhexe oo dowladda Soomaaliya centralization oo dowlad dhexe iyo state jira. state waxay shaqo u leeyihiin xaq qabteen doorashada baarlamaanka kale state in laga soo dhex doorto baa muhiim ma hadeen maamulkii shaqada hayeen la caburiyo oo la yiraahdo shaqada ma qaban kartid wajiga waxana way ku tahay ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay doorashada Kismaayo iyo Gadow Aaga doorashada gabigeeda Kismaayo hal geeyo sanduuqyada intii leeyihiin Kismaayo hal geeyo Kismaayo lagu coday almost inta weey deegaan doorashada hal meel laga dhigo hal lagu coday dadkana wixii soo bixi kara hal soo saar wax kale oo dhibo jira ma jiro. anigu ma garan karo Gadow iyo Kismaayo waa laba meelo isku mid ah waa dad isku mid ah diga dad wali isku isri isku heebad diga wax loo kala qoqobayo marna qaybna ciidamo loogu diray qaybna leeyahay halkana aan wax jiraan aan ma garan karo. marka meel una la geeyo ama Gadow hal geeyo ama Kismaayo hal geeyo waa same way. marka wax qorshaas ma laha doorashada insha Allah khayr ku soo dhamaanaysa saxaafadina aad waa mahadsantiin. waayahay ugu dambeyn maxaa shacabka Soomaaliyeed fariin u diraysaa? shacabka Soomaaliyeed gacmaha is qabsadeen ay isku tanaasuleen wadankana wuxuu ku hadda fikirka dad badan baa aaminsan in loo noqonayo halkaa maxaad u ka leedahay? نقول تولد سعدي هذه 1981 لكن ما أمسين وحنا مدة سنة على سكول وضع درك يدود على سكول حلو هبيب يوحى يلا كل سوعي وكحاله يلا شقة يلا شقة نوتها way aad ma santahay siyaasi ka mahadnaqeen waqtiga qaaliga oo siisay kaasna wuxuu ahaa maxamed cawil koote oo ahaa dhalinyarada siyaasiyiinta ee joogta Puntland. wareysigan anoo Saalax ayaa ka qaadiyay intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono oo baldan jir media leh nabadi.